taageerayaasha wadani aad iyo aad bay u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahadnaqaynaa sida taageerada noola garab taagnaydeen ilaa iyo maalintii xisbiga aan imi waxaa reerkan iyo dadka kale ee deegaanada kale ee xisbiga taageera si aan kala gool ahayn noo taageerayay oo xisbiga isu barbar taagayay oo annaga isu barbar taagayay si kalsooni leh oo madaalanimo ah aad baa u mahadsantihiin ilaawi mayno maalmihii adkaayaa nala soo marteen ilaawi mayno inaad mudaharaad nagu daba gasheen oo nagu raacdeen oo aad dhiiggii nagu hurteen oo qaar ku dhaawacmeen oo qaar ku dhinteen oo dhibaata u soo gaadhay oo aan weli u taagan tihiin aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahad celinaynaa idin ilaawi mayno taageerada madaalanimada ah ee la isku dayay in la bacraariyo waddani ee la loodin waayey awooddu waa shacabka idinkaanu idinku tiirsannahay ilaahay baynu ku tiirsannahay dhammaanteen laakiinse awoodda lagu loodin waayey tii naloo soo mari waayey tii loo babac dhigi kari waayey tii looga quustay waa taageeradiinna waana ku mahadsantihiin aad iyo aad bay mahadsantihiin caawa taageeradan la soo bandhigay ee taageerayaashii xisbiga waddani soo bandhigeen waa inay tashuushka ka saaraan oo muujiyaan dareenkooda deegaanada qaarkood oo laga yaabo ashqaas iyo odayaal inta la sawiro in lagu magacaabo bulshadii waatanoo waxay tidhi maya bulshadii waatanoo waxay tidhi maya bulshadii waatanoo way ismuujiyeen bulshadii way hadashay reerna iyo hargeysa xooggoodii iyo cududoodii bay muujiyeen waxay leeyihiin waxaanu taageersannahay waddani horena way u muujiyeen annaguna waannu idiin ognahay inkastoo hannaanka dawladnimo ina farayo kana taageera iyo ka inaga soo horjeedaba in cadaalad loo sameeyo haddana idin ilaawi mayno karaamadaa naga mudan tihiin sharafta iyo maqaamkaa ku leedihiin idin ilaawi markan intaa ka gudbo waxaan xusayaa jeclaa inaan xuso waxaynu wajahnay doorashadii baynu u diyaargaroobaynaa iyadii baynu u xarka xidhanaynaa waa xafladihii loogu talagalay in lagu baaqbaaqo oo lagu diyaariyo oo waxa weeye dadku ay yacnii ku diyaariyaan oo ku soofeeyaan maankooda iyo maskaxdooda si ay doorashada ugu diyaargaroobaan doorashada noocaasa ee aynu u diyaargaroobayno waxaa halkan laga xusay in badan oo ka mida waayeelkii hadalladii ku habboonaa iyo deegaankan caawa halka jooga kaalintuu leeyahay iyo wuxuu mudan yahay anigu dee reerna iyo hargeysaano halkaan degana waana ilaahay hortii in ay ku tusiyaan dadkaagu taageero waa wax lagu faano marka labaad haddii guri xaafadayadii layga taageero waxay iga maqaan weyn inay qaar kale ay taageeraan waayo xaafadaadu markay ku taageerto waxa loo arkaa nin reerkoodu taageeray laakiinse in reeruhu iyada ay dadka reer somalilan wada reerkaygii yihiin dadka reer somalilan haddana deegaanada kale markaad joogto waxay muujinaysaa kaalintaad bulshada ku leedahay aad iyo aad baa mar saddexaad iyo mar afraad u mahadsantihiin markaad ka imaado inaan xuso qiimihiinna iyo sharaftaa iga mudan tihiin sidaan sheegay doorashada aynu jahaysanay ee u diyaargaroobayno ee caawa aynu baroobaynayno ama tijaabinayno dareenkeenna iyo taageeradeenna deegaanadeenna ay yacni xisbiga laga taageero waxaa inagu soo fool leh oo caawa arkayseen iyadoo dadkaa isu soo baxay haweenkaa iyo dhallinyarada iyo waayeelka caawa qulqulato lagala hor yimi waa fashilka xukuumadda joogta iyo xisbiga taadahaya ee ka sii degaya ayay fashilkiisa tahay waxay inoo ballana u joojin mayno ilaa aynu ku hubsanno codka u joojin mayno waxaynu u codayn doonaa isbeddelka biidni illaahi tacaala dalkuna insha allahu tacaala isbeddel
ومعديو أيكو تلابسن دونا وأن فقين مالين دوا وحا تشوشة وحا الإسلام وبدا كدوا لأن قدوا كرمايو قفونا هو عرونين قفونا حكددين ويسي سعدان ويتغيان ودولة جيستي يا عادلين وحصوص مدن هو كان كاه markii uu kulmiye qabsanayay ay rejiimkii ka horeeyay ama dawladii ka horeysay uu damacday inay hoolkan ka joojiso caawana waa lugteedii waa habeenkiisii waa waqtigeedii muuqaalku waa isku mid waa laba maalmood oo kala duwan waxaana la yiraahdaa history repeats itself taariikhdayada isheegta taariikhda muujinaysa inay dawladdu tagayso taariikhda muujinaysa waxaana uu sheegayaa qolada xukuumadda ama jeclaada ama nabcaada isbedel ku imanaya dad codka Soomaaliland buu ku imanaya doorasho ku imanaya dadku haday idin diidaan damiya khasbaysa dadku haday idin diidaan la khasbaya lama khasbi karo iraadada shacabka إرادة الشعب كعندنا ما خص بكرته إرادة دين إن شاء الله تعالى أي إلهين إلى سورة الجلينية وحننظر داريا وحموقتين منك إن هذه الشرارة مثل دور شو بسورة ولا أي مادان يعني إلا يسكهري مادية إلا ولا حظية إن دودي مادان وحموقتا وحيارات أنشأ كلهم يعي أي دولة ضد كريه يسوع وأيضا تكون بين يسوع عي ودك ضد عايل وصمينيو والعقل لو بخينيو واربي واعي وحيد تري ميسو عودي دين نقول ميسو حدي وحوي الدولة لماذا لقاويو ومدحض العايو ولماذا الاحترام وايو ودقن كبر برو حين دولتكم مقرينا حين كجرينا وحلينا هاي وروحا سوا وحين دولنا يبدلوا aynu dhaxlo xidhano isku duubnaano u diyaar garowno inaynu amaan ka bedelo aad iyo aad u wanaagsantiin